maanta balana shilimaan ku siina arintaas ka hadal dharku u dhigan lahaa balse damiirka waa loo kala dhashaa wanaagana waa loo kala dhashaa waa midaan hore idinkugu sheegay waxaan nin walba 9 bilood oo ku dhashaa balse isku garaad isku naxariis isku damiir lama noqdo لا 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم وولكن بوهيرو يوتيوب كايغا داوانيسانا وبوهيرو ان عاو horta meeshan waxaan u fadhiyaa wax badan reaction iyo filmaan iyo qosol iyo qaraxaan soo fariistaa inta badan inaan idinka qosliyo maxay ahaydee aan waxyaabo idinka markaas idin farxad gelina aan soo sameeyo reaction in badan aan dadka reaction ka bixiyo dadka caanka ee bulshada saameynta kule gudahooda laftirkooda laakiin runtii caawa aad ayaan u caraysanahay inkastoo carada fiicneen runtii aad ayaan u murugeysanahay waxaan dareemayaa xanuun fara badan ayaan dareemayaa because haddii uu walaalka xanuun ku dhaco adigana wuu kugu dhacay horta waxaan rabaa inaan faahfaahin yar ka bixiyo hooyo walbo wiilkay dhashaa 9 bilood buu ku dhashaa balse isku garaad lama noqdo isku naxariisna lama noqdo isku waxgarashana lama noqdo mid waxaa jira 9 bilood ku dhashay laftirkiisa balse damiir laabo iska ah naxariis ay ku jirin walaal aan aqoonin only kaliya yaqaano calooshiisa inuu u shaqeysto wixii calooshiisa ka soo harana uu lugta la marasi oo macnaha shilimaad u sameeyo haddaba warkii aan idinku dheeraynin barnaamijkan caawa ka hadli rabo waa barnaamij nin saaxiibkayga ah la yiraahdo liicaate odooda taqaanaan uu soo diyaariyay liicaate horta aad baan u amaanayaa waxaan leeyahay liicaate ilaaha ku sharfo horta soomaalinimada kugu jirto iyo naxariista aad muujinayso iyo xilka aad isa saartay iyo mas'uuliyadda intaas la eg ee aad qaaday haddii aan liilow runta kuu sheegay liicaate ilaah hortiisa ayaa abaalmarin kaga helaysaa nin calooshiis u shaqaysta ah hadal meelaha ka yirina ma u malaynayo inuu saraftaada iyo magacaaga marna wax ka bedeli karo yaa wuxuu hadalkeedu ku badinayeen muuqaalka aan ka hadlayo caawa reaction kaliya ma waxaan ka bixinayaa asid waxaan naga hadlayaa qalbi ah waa inoo bilaabayaa muuqaalka wuxuuna ku saabsan yahay sida dabcan social media la isla dhex socdo maqasheen gabar walaasheen ah dhibaato ku jirto af libaax ku jirto ayaa nasiib wuxuu u yeeshay liil in lala soo xiriiro si uu baraha bulshada ummadiisa walaalaha ee asaga ku xiran maadaama uu yahay qalbi wanaagsan si uu ugu gudbiyo runta hadaan idin sheego liicaate waa la yaqaanaa siyaasad kama hadlo qof bini aadan ah si gaar ah uma weeraro waa nin farxaan ah ka qosliya dadka runtii ku dayasho mudan kaliya wuxuu ka shaqeeyaa sidoo asaga nafsadiisa farxad u rabo ninka walaalkiisna inuu kaga qosolsiyo waa nin majaajilaysta ah dadka ka qosolsiyo sheekooyin qosol sameeyo ma aha nin hore loogu yaqaanay hatta dadka dhibaataysan in loo doodooda ma ahayn waa nin niyad wanaagsan waa markii ugu horeysay ee muuqaalkan oo hadda ka hadlaya oo shaqada noocan qabta maadaama dad walaalo Soomaaliyeed ah ay arintan la wadaageen waxaa kaloo jira marka wiilal kale oo sidaas ayagana wanaagsan oo saxaafiyiin wariyaal ah iyo gabar kale oo Muqdisho joogta idan sidoo kale afartaas qof si damiir Soomaalinimo ku dheehan yahay ay ugu istaageen arintan haddaba arintan ayaan warkeedan ku dheereynin muuqaalka ayaan hadda bilaabayaa bal walaalkay liil hayba ila dhageysta sorry walaalkay liil caate bal ila dhageysto meeshii arinta ka bilaabatay iyo halkuu maray xaalka
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان سوماليين مeel walba aad dunida ka joogtaan caawa sidaad wajigayga aad ka dheehanaysaan waxaa isaaran murug waxaa iga muuqda xanaaq weligii aan leeyahay xanaaq kuma aanan soo gelin kuma aanan soo fadhiisan kaamil horteeda anoo xanaaqsan laakiin alxamdulilah wax walba ilaaha og allahu aclam waxaan rabaa in wax yar aan idinka taabto ma aanan jeclayn in aan ka hadlo ma aanan jeclayn in aan soo fadhiisto waxa ogeedeen gabar walaashin ah oo lagu magacaabo Dahraan Cali oo aad loo garaacayo aad loo jirdilayo ay ku xiran tahay wadankaas Liibiya god madowna ay ku jirto arrinkan sidee gabadhan ugu soo gaartay sidee hooyadeed isku hadlay ayada codkeeda sideen ku helay yaa igu soo xiray bilowgii aniga ma aanan jeclayn in arrimaha qaar aan galgab waad ogtihiin waxaan ahaa qof farxaan ah qof bulshada Soomaaliyeed meel u taagan dadka ka qosliya dadka farxad geliya kiina murugsan kiina xanuunsan wax walba idinka dartiin ayaan u sameyn jiray haddaba Soomaaliya waad maqasheen waa sida saxda ah ee lagu yaqaan ninkan inuu farxaan yahay inuu dadka ka qosliyo inuu siyaasadda iyo waxa faragashan aan ku soconaa raggaas u diray sida gabadhan habeen walba igu soo weynays ee ugu damqada xanuunka haay ee ugu naxariistaan alxamdulilah arinku waa sameeyay waan ku dhaqaaqay sidoo kale arink marka YouTube-ka aan geliyo hooyo lambarkeeda aan ku qoray waliba lambarkeega ma ahan hooyo lambarkeeda akoon ma lahayn wallahi alcadiim lambarkeeda markaan ku qoray waxa dhacday in aan ishelno gabar lagu magacaabo Salma waa gabar insaan ah ilaahay hadistay waxay ku nooshahay Muqdisho way soo xariirisay Libaano waxay dhaad abooy wax u damqaday tiri aan ka xanuunsada dadka sidaan oo kale ah waxaana jeclaystay arrinkan in aan kula garab istaago wax walba igu noqoto waxaana Salma abba aan horta waad maqashaan Salma waa gabadha Muqdisho joogto halkan ayaan ka salaamayaa ilaah xakaasi ajri iyo xasanaad liibaan sidoo kale to liicaat loo yaqaan sidoo kale asagana ilaa ajri xasanada ka siiya aan ku sii socona muuqaalkeena idinka dhaxgalin qaba karta waxay dhaad wax badan horaan dad badan u caawiyay waxaan aqaanay tiri wariyaal waxa kamid ah tiri Cali Aadan Muumin iyo Nasr Maxamed waxaana ka codsana hadaad ii soo dirto fiidiyoyadaas iyo gabadha sawiradeeda in aan ayaga la hadlo oo aan ku baryo in lambarka hooyo Qadiijo الله صار مشاس بيج كذا دقان ما دام ضد بدن يكحرين أنا وأنا كان علي على المؤمن وضد كان سوشيال ميديا كجرا كركاس سكيل عشرة صاد مقشينبا وقف كسدحات اللي وذا برنامج كعالمات دان أي سمينين كقيب قاتو على محمد مؤمن ووريلا يقانو عن قصي سعنا يوم واحد كذا قد حقلين ضد كسكو ضمير معهن كسكو حجرشنا مع سانهوريد كوكو شيء توكل منصر ما شاء الله لابد أنا مركز اسمه يعني سلامنا هالين سلمان كعصتي وين سميين أنا من بيج كيجا فيسبوك وأنا صادق هم أنا وذا الشهر قريب هل لمبرا كوكورنا ويا قديجة إسكاله لمبر كلنا وجري وأيضا لقوه لبر لمبر اللي هذا أرين كسيب كسر الحمد لله صومالي دون هوي ويوذا وعيين ويلحلين قاركود ويود عيني واحد عادي متكدب أيام كدب وحن فيسبوك وكاركي أين يوتيوب كارده ويلقوا مقعاهم محمد بسكو وحن ليسو شرقري فيديو قبل شاشة عديسة وهو صار قبل دي حسي وكجرت سيدة أوريدين اللي كجي الميسيس إذين بهني ولا شيء حدا صاد مقشان قبل دي مساكين تأهيدي عفك اللي باح كجرتي أيام مشروع لغدكتي أو ويلشان ولا عليهن ay u dadaalayaan caawimaaddeeda ee bulshada Soomaaliyeed soo bandhigeen ninka lagu sheegay Maxamed Buskut hadbasaad maqashaan muuqaal gabar shiishad cabaysa ayuu ku soo dhajiyay oo social media ku soo baahiyay waasad ila maqashaan haddaba ogaada saan hore idin kugu sheegay dad waxa jira adduunyadoodii aqligoodiiba ku soo koobay calooshooda ishilin inay sameeyaan oo kaliya dameerkii walaalnimo diintii naxariistii bini'aadamnimadii Soomaalinimadii intaba ay ku jireen aan ku socona muuqaalka afar sano ka hor ay xabsiga Liibiya ka soo baxday hadda Yurub ayay shiishad ku cabtaa wayna tumataa hooyadu waa aragteen wajigeeda aragteen way ooneys ilaaha maciinta iska leh maanta umada Soomaaliyeed u fadhiya ay ku heysay qof baahidaas sheeganay ma jirto Soomaaliyeena waan adagna waad aragteen Maxamed Buskut waan arkay fiidiyogiis aadan uga xanaaq wadan shisheeyo jooga waxaan dhahay maxaa ka qaldan lambara meesha ku qoran waa lambarkii hooyada inuu wareysto muxuu la hadli waa comment u qoray waa kana arkay waxaan haddaba su'aad walaalkeen
idin sheegay liicaate waa wax laga xumaado waxaas oo kaleeto damiir Soomaalinimo kuma jirto nimanka noocaas u dhaqmayana been idima sheegayo waa niman damiirkii ka dhintay ee calooshooda u shaqaystayaal ah haddaba waxaan idin tusayaa oo walaalkii noo soo bandhigay markuu muuqaalkaas arkay ninka soo baahiyay comment ayuu u qoray haddaba commentigu u qoray bal ila arka walaalkii ma ahan fiidiyowga inaad soo dhigtaan waxaan hubsanaa ku dhaqaaq waxaa fiicnaadaan dhaha in lambarka ku qoran ee munasir page-kiisa ali aadam muumin page-kiisa aniga page-kayga macallaa youtube-ka soo dhigay lambarka ku qoran waa hal lambar inaa wacdo haddaba saad maqlaysaan saddexda qof ka qayb qaatay gabadha abaaye muqdisho joogta marka laga reebo saddexdooda page ay soo saareen si sax ayay hal lambar ugu soo qoreen lambarka hooyo ku soo qoreen insha Allah hooyo gabadhaado ilaah baa u maqan walaalaheeda u maqan Soomaali oo dhan u maqan annaga u maqan laba caada qaate ee qaadul dariiqi calooshad ku shaqaystayaal ah horta waxba kama dhimin waxna uma dhimi karaan insha Allah way soo bixaysaa lambarkii hooyo way wici kareen ma ay soo wicin ilaa qofka wanaag markuu rabo wax sameeyaa qofka xumaan markuu raban xumaantu u muuqato aan ku socono hadasho oo hooyada wareysato wuxuu ii soo qoray ujeedin qoraalkiisa wuxuu dhahay dad aan ku kalsoonahay ii soo sheegeen dib aan u wici doonaa sidoo kale waxaan aad uga sii naxay oo igu qasbay in aan fiidiyowga caaw u soo duubo anigoo rabin maxamed buskudkaas waxba aanan u duubeynin waa nin xasaanad aan lahayn hadalkiisa iyo wuxuu yahay aan kala aqoonsi u hadlay waxaan arkay nin lagu magacaabo abaha asaf fiican wada taqaanin idin ma sheegay isla sawirkiisa harna maxamed buskud gabadhu u soo sameeyay horta Soomaaliyeed aan waxay idinka dhax gala dunida wallahi inaan caradi ahaysa kaliya u hadlaynin been idin ma sheegay ninkan la leeyahay maxamed buskud hadduu imaqlay waa useless horta waan aqaan dhowr jeer aan social media baraha bulshada waxaan ku arkay asoo gabdhaha Soomaaliyeed ee dadka jilacsan kaliya wax ka sheego waa calooshiis u shaqayste xun ee damiirka Soomaalinimada ka dhintay haddaba waxaan fariin u diray horta marka ugu horeyso walaalkay leey aate Allah ku darajeey baraada sharaftaada iyo wax qabadkaada noocaan oo kale horta waxba uma dhimi karo ninka maxamed buskud la leeyahay kala markaan ka hadlo waxa haddana la yaab ah marka la yaab ah nin noocaan oo kale social media inuu ku jiro ee dad wax ka dhageysanayo oo raadinayo waa sharaf xumo bal aan ku socono muuqaalka ayuu soo qaato shishida cabays una ka waxa kale la yaabanahay sidaad wada taqaanaan ninka la yiraahdo abaha waa nin majaajilaysta ah dad badan oo sharaf leh wax la soo sameeyay bulshadana wax badan uu sheega ay ka rumaysanaysa ama ay run u qaadan karto laakiin abaha bal muxuu ku dhaqaaqay falku ku dhaqaaqay aan ka hor dhicin bal ila fiiriya wuxuu dhawaabeen sax ma ahan lambarka waa lagu qaraabanaya dad baahi heesanayo baahiyanaas waxana si bal ila dhageysta muuqaalkan hadhow dad ayaa waxay dhihi doonaan boy hero abaha waad ku qaldoontay ama abaha ayaa saan tiri haddaba been idima sheegaya aniga waxa ugu jiro waa damiir bini'aadanimo waa damiir Soomaalinimo hooyadaas ilinteeda way dhibaysaa walaalahayga arintan u taagnaay ee magaxumada magaalada in loo maray ama adduunka lagu tiragalay way dhibaysaa ima yaqaanaan isma naqaano kor social media soo asaga sheegay walaalkay aatay social media walaalan ku nahay isku bahaanahay kor ayaan iska wada naqaanon iska ilaashanaa laakiin wili islama hadin saddexda qof afarta qof ee arintan ka qayb qaadatay qeyr Allah si ilaaha darajeeyo intooda midaan wiligan isla hadalay ma jirto laakiin qalbiga ayaan ka jeclahay wanaag ay wadaan aan jeclahay shaqadan qaban lahaa ay qabteen Allah darajeeyo marka Soomaaliya waxaan hadalkaaga hor dhacaynin ninkan abaha ah hadhow dad ayaa macnaha ii arki doono abaha ayaad ku qaldoontay in la yidhaho ma anaa qaldan mise asaga ayaa wadada ay kalluunsan tahay bal ila arka oo beertood ay tahay laftirkood baahi lehaysa waa kana horta adduunyada waxaa ugu nasiib xun
nin weyn oo bulshada dhexdeeda laga yaqaano noocan oo kale u dhaqmay oo inuu social media soo fariistay dadkan waa tuugsanayaan oo lambarkay meesha ku soo qorteen beentood waaya inuu meesha la soo fariista abaha waxaan leeyahay horta ceeb hadday wax tarayso adaa ceebaysan waxa kaa qaylisiinaya aniga kulley ra'yi ahaanteeda markaan cabiro waxaan ogahay wiilashaan markii arrintan lala soo wadaagay adiga kumay soo wicin kulumay soo wadaagin damiirkooda iyo kartidooda intii dadka Soomaalida wax u gudbin karaan ay u gudbiyeen lambarkooda kumaysa qorin meesha lambarkii hooyaday ku qoreen si hooyadaas qof walba uu la xiriiro balse abaha adiga waxaad rabtay in abaha dhibkaas jira marka lagu yiraahdo sida caadada kuwa aan kugu aqaano maanta ka hor arimaha kama hadlin aad sameysay in badan marka dhaxdo dadka baan macnaha caawinay ama qof dhibaataysan wax u qabanay ama qof xanuunsan ama saan oo kale markay dhaxdo dadka lacagaha kaga arursanaysa ma dhicin wili qofka dhibaataysan familkiisa ama hooyadiis inaad lambarka meesha ugu qortay waxaad ku qorataa lambarkaaga waxa dhici weysay marka in ay kula soo wadaagaan si aad lambarkaada meesha ugu qorato qalbigaad ka jiran tahay marka calooshiis u shaqaysta tahay damiirka Soomaalinimada ka dhintay kaliya dadka ugu gabado abaha ayaa la yiraahdaa aan ayaan ay waxbaan sameyn jiray aad ugu soo gabataa dadka abaha hadii aad daacad tahay lambarkaaga kuma qaraaban lahayn inaad dadka lacag ugu aruriso qofka masaakiinka ahayna aadan wixii loogu tiragalay tahay u gaarsiin marka abaha aniga uma aqaano nin Soomaaliyeed inuu yahay qaadixul dariiq damir laaw ah calooshiis u shaqaysta ilaahay ka furtay inuu yahay u aqaana aan ku socona muuqaalka dadka meesha ku soo sheergareeyay lambarka ku qorana dadka meesha ku soo sheergareeyay maamada baahinaysa ayaga baahinaysa oo dhan anaga baahina ma had haddaba maamadu wuxuu yiri baahi ma haysa dadka meesha ku soo sheergareeyay lambarada meesha ku soo qoray baahi haysa saa ognahayba saddexda wiil ee baahida uu ku sheegaya dalka dibadiisa ay jiraan waa dad la wada yaqaan caan ah waxaan u maleynayaa baahi waa mid asaga hadda meeshu hadda jooga dhigtay oo telefoonada ugu tuugsanaya dadka youtuberada ugu tuugsanaysan ognahay abaha marka hadiiba tuugsi uu jiray ee dadka lagu qaraabto magacooda adaa ku qaraabto shame of you aan ku leeyahay ceeb haday wax tarayso adaa ceeb ku haysaa calooshiis u shaqaysta damiir laawaana tahay hadii aad wax maqlayso arintaas in aad ka noqoto maxaad isdhaahdaa bal ceebti kugu dhacdaya bal ceebti inaad iska meerto tan kale abaha waxaan ku weydiinayaa oo iga su'aal ah Soomaaliya bal maqla nimankan walaalaheen ah ee dadaalka iyo juhdiga badan bixiyay qeyr Allah siiya aqara iyo ajirkaas heli doonaan markay gabadhu u dadaalayeen abaha iyo ayaga yaa u dhawaa hooyo ayaga u dhawaa abaha u dhawaa ayaga waxa dalka dibadiisa jiray abaha miyuu awoodi waayay inuu hooyo hal sent ku shubto oo dhahay bal arintan maxaa ka jira waa maya waxaas waxa kala weynaaday maxaa liigu sheegay way aan ku qaraabta aniga markino damiir laawo yahay calooshiis u shaqaysta ah ee damiirka ka dhintay way iska cadahay ma aha aniga asaga aan dusha ka saaray kulli dabcan wadi la ogtiin aan ku socono alxamdulillah madan xanuunsan wax waan ku caawina sheega meen walaalkayo ani wadanka waa ka maqanahay labadaas wariina wadanka way ka maqan yihiin abaha waxa fiicneed Soomaaliya joogta waa lagu wada yaqaana saasheeka dadka dumacinta lambarkaaga ku qorata walaalkayo marka leedahay umada Soomaaliyeed qofkaana xanuunsan lambarkaaga ku qorata iyo akoonkaaga aad ku qorata ma fahanti saaxiibkayo oo ay qadiijo afgooy degantahay subax alla keenay way soo bixi jirtay muqdisho imaan jirtay magaalada ay imaan jirtay way rafaadi jirtay walaalkayo lambarkeeda beed walba ku qorna saddexdiinaba lambara kala duwan maana ku soo qoran waxaana dad masaakiin brother oo qofka bilaadanka u naxa waa ka damqan gabdhaas walaasheena inaana ka aamusnana qaladay nagu tahay way nagu aamintay abaha waa dawooday 16 ku subato in hooy qadiijo lambarkeeda aad wacad xaqiijiso waa la hadash oo maxaa ka qaldan warkama been
haddaba saad maqlaysaan waad u jeedaan walaalkiin waa runtiis abbaha ma awoodi weynin inuu maamadaas la xiriiro asaaba muqdisho joogo hooyo way imaadaan mar walbo dhibaatada haysatana wuu og yahay ama wuu maqlay soo hadda xumaanta u raadinaya ayuu mar walba u maqli jiray maamada dhibka haysto umuus istaagin intuu jiray markaas calooshiisu shaqaystahaas mar haddii la dhihi lahaa abbaha la leeyahay haddii la dhihi lahaa bal maamadaas ayaa wax jire dhibkaase ee maanta balanaha shilimaanku siina arrintaas ka hadal dharku u dhigan lahaa balse damiirka waa loo kala dhashaa wanaagana waa loo kala dhashaa waa midaan hore idinkugu sheegay waxaan iri nin walba 9 bilood oo ku dhashaa balse isku garaad isku naxariis isku damiir lama noqdo qaar waxaa jira lagu qasaaray sida noocaas oo kale calooshiis u shaqaysta damiir laabe qaadul dariiq aan u arki karaa aniga hadii la weydiiyo maadaama uu rabo inuu gabadhaas la garab istaagi lahaa oo dhuuntu u istaago ayadoo waliba gabadha xaaladda ay ku sugan tahay la wada og yahay ay tahay gabar afli wax ku jirta ama gafo maanta af gacanta ugu jirto waxay ku sugan tahay cid ogaan karta ay yar tahay dhibaato haddii wax taraysana way haysataa gabadhaas inaan maanta ka oyna ayaan xaq u leenahay inaan u istaagnan xaq u leenahay laakiin damiir laawahan oo kale iyo ninka kale idin sheegay labadaas waa laba damiir laawe caloosho u shaqaystayaal ah kulli aniga waan aaminsanahay kuwaas xukun in ay maraan ay ku fiican yihiin waa qaadul dariiqyaal ilaahay ka furtay maraba inaan ku sii dheeraado carada inay ila tagtana maraba bal muuqaalkan ku sii socon ila dhageysto walaalkeena aswaarun ma lagu qaraabanaya ina maamada dhahdo muqdisho imaanaysa subax alla keeno walaalkii waa la fadhiisi kartay baabuur aan leenahay dhahay bajaaja qaada kartay kaamirada la kala bixi kartay ummada Soomaaliyeed dhinaca uga toogi kartay dhigi jirtay aan dhigi kartay hooyadan Soomaaliyeed caawimaad u baahan tahay caawiyo walaalkeeyo ana ugu xumahay waxaan rabaa ina wax idin kula tuso ina wax idin ku dheeraad hadalkayga marrib aabbahaan aad ugu carooday maxaan buskun aad ugu carooday ayadoo bil ramadaan lagu jiro in hooyo Soomaaliyeed habeen madow ku qasbaan in ay video u soo duubto nidaamka ay wadatan ay u dhigto horaan way kala hadashay hooyada mar walba nidaam wax ku duubtaa laakiin way iska dhigtay habeen madow video ayaan ku qasbo hooyo Khadiijo oo aan dhahay gabadhaadi waa laga been sheegaya wayna gaartay gabadhi xabsiga ku jirta waayo waxa si gooni ah u la xiriirta Salma oo kaalin weyn ka qaadatay ayadoo xabsiga ku jirta inay la xiriirto gabadhaas Dahraan Caliya way la sheekaysataa niyadii u dejisa waxaan u sheegtay in laga been abuurtay oo sawirkeeda la saaray ayadoo shiishad cabaysa aadi oo sacaawa aadi umrugeeni sacaawa cadowga heesto waxa ugu daran kan isaaqadii maanta umada Soomaaliyeed hooyo Khadiijo ugu dhiibay gabadhaas ninka ka hor istaagay taas ugu dar Soomaaliyeed balaanidin su'aale abbaha gabadhan hadda meesha lagu haysto ee walaasheen Dahraan hadday walaashiis ahaan leed asaga tii la dhalatay ahaan leed muxuu ku sameyn lahaa maxaana la gudboonaan lahaa muxuu ku dhaqmi lahaa maanta qofka meesha ku jira hadday midda asaga la dhalatay abbaha ahaan leed ama gabadhiisa ay ahaan leed waa su'aal meesha taalo midla tahay qaabku hadda u dhaqmay inuu u dhaqmi lahaa ma idala tahay gabadhaas walaasheen ee loo gurmanayay inuu gurmudkeeda beenayn lahaa oo ka hor istaagi lahaa ma idala tahay hooyadaas ilmeynaysa ee ooynaysa in uu hadalkeeda been ku sheegi lahaa haddii asaga la dhalan lahayd waa mayo haddaba taas maxay idin cadaynaysaa marka asaga in ninkan kala tab inay yihiin laba nin ee damiirka ka dhintay ee damiir laawayaal ah way iska caddahay hadhow haddii la dhihi lahaa dabcan boy hero boy waad ku soo qaldoontay ninkan oo kale ama dadkaas waxbaad ka sheegtay aniga kuma qaldoomin ee way caddahay haddii walaashiis ay ahaan leed saa ma sameeyeen gabadhiis hadday ahaan leed ma sameeyeen hooyada ooynaysa oo hooyadiisoo kale ah hadalkeeda ma beeneeyeen taas waxay ku cadaynaysaa marka damiir laabo inuu yahay qaadul dariiq calooshiis u shaqaysto inuu yahay way iska caddahay aan ku socono muuqaalka waxaan rabaa walaalkay Munasar in aad hal mar ila aragtaan kaalinta uu ku lahaa gabadhan caawimaadiina Munasar horta walaalkeen asagan sidoo kale kaalin uu ku leeyahay soo hore idinku u sheegay walaalkay bal aan u gudubno muuqaalka walaalkeen Munasar wuxuu ka yiri waa ma santahay walaalkay liibaan aadan liicaato abbaha inuu duro hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo ilmeynaysa maxaa ku kalifi kara gabar walaashiis oo kala ah oo u xiran nin arxan daran oo magafa ah
oo dhibaateenaya oo ugu hanjabaya inuu dilaayo oo garaacaya inuu beensado 30 kilomitir ee Muqdisho u jirtaa abaha hadii uu tuhun hayo muxuu u wici waayay teleefanka liicaad uu soo bandhigay midka aniga u soo bandhigay ka cali aadan u soo bandhigay oo hal isku ah muxuu gaariga uu wato shidaad intuu ugu shubto afgooy u teey waay muxuu intuu bajaaj qaato uu ugu teey waay afgooy uu soo xaqiiqsan waay waa $1 iyo wax ka yar kaba soo tag abaha wuxuu doonayaa inuu warkan u beeniyo maadaama dadkan dhibanayaasha ay masaakiinta ah aan asaga la soo marsiin haddaba bointigan ka hadlay walaalkii ayaa ka hadlay wakaa abaha haddii asaga lala soo xiriiri lahaa gabadhan ay soo marsiin lahaayeen wiilashaan dhaxdu u xiran lahaa lambarkiisa inuu ku qorto accountigiisu dheelaa inta lagu soo diray lacaga caabna lama ay noqoteen balse walaalihii markii ay damiirkoodii u siiyay qof walba oo Soomaaliyeed ee gabadhan u damqanaya ee raba inuu wax ka geysta gurmadka loo fidinayo in uu ku diraa lambarka hooyadaas ama uu la xiriiro hooyo toos ah abaha way u noqon weystaa markuu arkay ilaa qalbigiisa jiran qofku markuu qalbiga nadiif ka yahay ayuu caafimaad helaa xaluushiisu shaqaystanimadiisii ayaa markaa meesha ka baxday maxaa lagu soo xiriiribay ay carow muujinaya marka waa qaadul dariiq ninkaas oo kale aan ku socono soo isbaaracad muu ekaanayso haddii adiga qofka uusan adiga kula soo xiriirin oo ku dhihin walaal dhibkaas ay haystay caaw waa sax haddii aad aragto baraha bulshada dad kale oo ka caawinayo si walaalnimo oo si mutadawacnimo ugu gurmanayo macnaheedu ma been inay sheegayaan dadkaas dad lagu bartay been manihin ilaahana ma hadda iskale gabar Soomaaliyeed oo walaasheena oo dhiban oo joogta dal shisheeye oo la garaacayana inaan ka hadalno dhibkeeda dadku soo bandhigno waajibna saaran waa horta taas walaalkay waa waajib ku saaran waxaan leeyahay horna waa u sheegay afartiinaas qof horta ajir iyo xasanaad Allah idinka siiya arinta aad qabateen waa arintii loo baahnaa halkii looga baahnaana waad ka abaarteen waxaa kaloo rabaa markiina adinkeeda la dardaarmo labada nin ee calooshadu shaqaystayaasha ah ee abaha iyo ninka kale Maxamed leeyahay horta nimankaas ayagaaba sameecad isharaf aad adinka leedihiin waxba uma dhimi karaan amalka wanaagsan aad sameyseen ee gabadhaad u gurmaneysaan halkiina ka sii wado ilaah baa ajir idinka siinayo nimanka calooshadu shaqaystayaasha ahna dabcan intaas ayaa ugu filnaan doonta ay ku qos qaadan doonaan ceebtooda inay Soomaaliya dhan ogaata uma maleynaayo marka inay wax idin dhimi karaan walaalkii hore u soco waxa maanta ceeb kugu ah tarxumo kuugu filan in adigoo aan nin weyn oo dadka Soomaaliyeed ee hadalkiisa aamin og yihiin ugu yaqiinay ina hadda u soo banbaxday ina hooyo Soomaaliyeed oo ilmeenays aad warkeeda been ku tilmaamto ina hooyo Soomaaliyeed oo u baahan caawinta dadka Soomaaliyeed ka hor istaagto Allah ma had sugnaatay hooda gabadhaas dadaalkii lala galay oo liicaad uu bilaabay mira dhaliyay alxamdulillah waxaase waana kuugu filan walaalkeeyo fariinta aan ku soo gudbinayo waliga iyo Allah ka reebtoona inaad wax naqdiso adoo xaqiiqo waxa ku kalifay hooyo Soomaaliyeed inay gabadheeda u soo bandhigto baraha bulshada oo ay ku xiran yihiin malaayiin qof oo ay dhahdo gabadheedaas dhibaatadaas loo geystay haddaanu dhib jirin dadka Soomaaliyeed laguma yaqaan dad dawarsada xitaa markay xaaladooda meel xun gaarto waxay isku dayaan inay dib u dhigtaan ilaa ma culeysku uu noqdo mid aan lacag maaragtay la xaqiri karin oo iyaga kaliya aysan wax ka qaban karin waana mid hadda hooyadan Soomaaliyeed haysata waayo gabadheeda ayaa af libaax u dhex sugan haddaanay dadka Soomaaliyeed u wada kicinna cid caawinaysa malaha liicaato mar kale waxaan kugu amaanaa walaalkii waad ka soo wada bogoteen waa Munasar Maxamed jazaakumullahu khayr walaalkay aad baa mahadsan tahay sidaad u caawiso walaalahaaga Soomaaliyeed kiina xanuunsan kii dhaawacan kii murug haysta kii cadowga haysta kan afka libaaxba ku jira waa ku mahadsantaa walaalkay caaw ay ugu horeysay in aan Munasar lambarkiisa aan qabto aan walaalaha hadlo waan la sheekaysto aan ka codsado in ummadda Soomaaliyeed uu hor yimaado waniga igu xiran way aniga bilaabay in aan gabadhan dadku soo bandhigo sidoo kale haddaba saad maqashaan walaalkii asagaa bilaabay hawshaan meel wanaagsanna way maraysaa marka waxaan u malaynayaa
liicaate dadaalkuu muujiyey waa dadaal soomaalinimo ay ka muuqato waxaana walaaleeyana waa walaalnimadii islaamnimadii weeye waxna walaaleey iyo soomaalinimada La 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 la.